Assalaamu calaykum saaxiibayaal, kusoo dhawaada xog aan ku eegi doono. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intuusan ka duulin ayraboorka magaalada Muqdisho amar ku siiyay agaasimaha NISA Mahad Salaad inuu ilaalada gaarka ah kala laabto xildhibaan Cabdulaahi Kulanajiis. Cabdulaahi Kulanajiis ayaa ahaa sarkaal hore oo ka tirsan hay'adda NISA, lahaana ilaalo khaas oo amnigiisa suga. Mahad Salaad ayaa tallaabadan qaaday kadib waxaa baraha bulshada qabsatay dood ka taagan in dowladda Xasan Sheekh ay ka baxday ballanqaadkii ahaa inaysan jiri doonin aarsi siyaasadeed. Xildhibaan Cabdulaahi Kulanajiis oo bartiisa Facebook kaga falceliyay arrintan ayaa sheegay inaysan baqdin gelin doonin, aysan wadan doonaan waajibaadka saaran. Waxaa u soo jawaabay oo aadna uga falceliyay dad badan iyo siyaasiyiin badan, waxaana aad ugu digtay xildhibaan Saadiq John oo ku tilmaamay arrintani inayba tahayba bilow aan weli la isgaarin. Jamaahiirta Nabad iyo Nolol iyo dad badan oo siyaasiyiin oo ka aragti duwan Xasan Sheekh ayaa arrintan aad uga falceliyay, kuna tilmaamay in dowladda Xasan Sheekh ayba ka xishoonaynba inay beegsato xildhibaanada xasaanada leh. Hadda ka hor ayay ahayd markii weerar lagu qaaday gurigii uu deganaa Fahad Yaasiin, lagana qaatay wixii xog iyo agab meesha yaalay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga warsugayaa qaabku arrintan uga falceliyo, waayo Xasan Sheekh ayaa ololaha doorashada ku galay inuusan jiri doonin aarsi siyaasadeed. Kadibna arrintani wuxuu ku dhawaaqay maalintii ku guuleystay xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayuu haddana mar labaad ku celiyay inuusan jiri doonin wax aarsi siyaasadeed ah. Sidoo kale maalintii caleemasaarka ayuu Xasan Sheekh mar saddexaad ku celiyay inaysan jiri doonin siyaasiyiin laga aarsado. Arrintan ayaa aad ugu muuqata aarsi cad oon geedna lagu gaban oo lagu qaaday xukuumaddii hore ee dowladda Soomaaliya. Dhageystayaal, waa naga intaa xogtii aan ku eegaynay weerarka qaawan ee lagu qaaday Cabdulaahi Kulanajiis. Fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalkeena, subscribe saar saad ula socoto wararka maalinlaha ah iyo xogaha aan ku eegayno dabagalka wararka. Mahadsanidin.